wararka ka imanaya marinka Gaza ayaa sheegay in ciidamada Israa'iil ay xalad duqeyn ku dileen afar ka mid ah shaqaalaha hay'adda gargaarka caalamiga ah ee ka howlgala Gaza iyo dalawarkoodii oo muwaadin Falastiini ah. Shaqaalaha ayaa u shaqaynayay hay'adda World Central Kitchen saacadoon kadib markii ay hay'addu keentay xeebaha Gaza maraakiib cusub oo gargaar sida oo soo maray baaritaan iyo marin badeed oo Mareykanku uu rajaynayo inuu noqdo dariiq kale oo lagu badbaadinayo nolosha shacabka Falastiiniyiinta ee ku go'doonsan waqooyiga Gaza iyadoo laga hortagayo macluusha ay qaramada midoobay ka digtay in dadka Gaza ay qarka saaran yihiin. hay'adda World Central Kitchen ayaa sheegtay in gaarigii ay la socdeen shaqaalaheeda la duqeeyay xilli ay ka soo laabanayeen gargaar qaybin ay ka wadeen waqooyiga Gaza. hay'adda ayaa ciidamada Israa'iil ku eedeysay kuwa ka mas'uul ah tallaabada lagu bartilmaameedsaday shaqaalaheeda oo gacan ka geysanayay dadaalada gurmadka bini'aadantinimo ee nafadbaadinta. tani waa musiibo. shaqaalaha gargaarka bini'aadantinimo iyo rayidka waa inaysan abid bartilmaameed u noqon, ayay hay'addu qoraal ku sheegtay. shaqaalahan samafalka ayaa la weeraray maruu gaarigoodu marayay marinka Gaza, gaar ahaan Dar al-Balah. meydadka 5 qof ayaa la dhigay isbitaalka al-Gaza. 3 ka mid ah dadka dhintay ayaa u dhashay Ingiriiska, Poland iyo Australia, halka kan afraadna aan weli la aqoonsan dhalashadiisa, inkastoo la sheegayo inuu ahaa muwaadin Irish ah. mid ka mid ah shaqaalaha ajaanibta ah ee la dilay waxay ahayd haweeney Australian ah taasoo magaceeda lagu sheegay Zomi Francom. dadkan ayaa la sheegayaa inay wateen qalab ilaalin oo leh astaanta hay'adda samafalka, mana cadda ujeedada ay ciidamada Israa'iil u beegsadeen. taliska militariga Israa'iil ayaa goor dambe sheegay inay dib u eegis ku sameynayaan dhacdada si loo ogaado sababta keentay in shaqaalaha gargaarka la weeraro. Israa'iil ayaa lagu eedeeyay inay isku dayayso sidii ay u sii wadi lahayd weeraradeeda caduutinimo iyo gaajeysiinta dadka aan waxba galabsanin. qaramada midoobay ayaa dhowaan sheegtay in Israa'iil ay sida hubka oo kale u adeegsanayso gaajeysiinta dadka rayidka, isla markaana ay abuurayso musiibo aan dabiici ahayn. qaramada midoobay ayaa Israa'iil ku dhaleecaysay inay Gaza ka sameynayso musiibo gacan ku samaysa taasoo baalmarsan shuruucda caalamiga, isla markaana dambi dagaala. saraakiisha qaramada midoobay ayaa iftiimiyey in gaajeysiinta shacabka Falastiiniyiinta ay qayb ka tahay istiraatiijiyadda Israa'iil ka leedahay burburinta Xamaas. dambiyada sii kordhaya ee Israa'iil ka geysanaysa marinka Gaza ayaa madax xanuun ku riday bulshada caalamka, mana jirto cid si toos ah ugala xisaabtamaysa amaba u ciqaabaysa. inkastoo uu sii xoogaysanayay baraaruga bulshada caalamka, Israa'iil ayaa si joogta ugu xadgudubta shuruucda caalamiga ah markaad eegto korarka dambiyadeeda Gaza.